بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كيني صور من حياة الصحابة. صحابينا maanta aanu ka hadlayna haddii rabbi idin waxaa la yiraahdaa xakiim ibnu xazaam. إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. أحدهم حكيم ابن حزام محمد رسول الله. كلمة iyo oraahdaas waxaa yiri nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yiri ina maka waxaa ku sugan 4 qof oo aan aad ula nacbaysanayo shirkiga wa arqaba lahum aan ula jeclaysanayo fil islaam, waxaana ka mid ah xakiim ibnu xazaam. haddaba makuu yimid saxaabigan warkiisa. laqad sajala taariikhdu waxay qortay inuu ahaa mawlidkii ama canugii keliya ee ku dhashay daakhil kacbatulmusharafa dhexdeeda canugii ku dhashay. qisadiisa iyo warka dhalashadiisa waxaa la yiri waxay ahayd hooyadii ayaa waxay gashay ayada oo ay tahay waqtigii ugu dambeeyay xaaladda xamliga ay ku waday ayay waxay galeen ayadiyo koox dumar oo ayada la eg jawful kacba. farax iyo fara meeshaas wax ka jiray. maalintaasna waxay ahayd maftuuxa limunaasabatin oo min almunaasabaat quraysh munaasabaad ay lahayd darteed. halka ayaa waxaa ugu timid waqtiga ayaa waxaa u timid fajaaha almakhaad foosh ayaa u timid, mana ay awoodin inay halkaa ka tagto. waxaa loo keenayaa la yiri binidcin maqaar ayaa loo keenay, waana loo dhigay halkaa ayayna ku dhashay. marka wuxuu ahaa mawluudkii ama cunugii lagu dhalay fii jawfil kacbada dhexdeeda. wuxuuna ahaa xakiim ibnu xazaam ibnu akhi umulmu'miniina sayida khadiijata bintu khuwaylad radiallahu canha wa ardaaha. umunaa khadiija ayaa waxay u ahayd eedo ayay u ahayd oo walaalkeed ayaa dhalay khadiija bintu khuwaylad, iyo wuxuu ahaa xakiim ibnu xazaam ibnu khuwaylad walaalkeed ayaa dhalay. haddaba xakiim ibnu xazaam wuxuu ku barbaaray qoys nasabkooda iyo sharafkooda ay aad u qiimo badan tahay, ay yihiin dad jaah iyo sumcad ku leh quraysh dhexdeeda. waasicatu tharaa, dad hanti leh oo ilaahay dhaqaale iyo hodnantinimo siiyey ayna u ah. waxaa kaleeto ahaa nin caaqil ah, aad maskaxdiisu u badan tahay, nin furfuran oo haddana deeqsi ah, oo mansabka rifaadada ama martisoorka xujaajtana loo caleemo saara ayuu ahaa. waxaa kaleeto ahaa mid bixiya maalkiisa wax kasta oo uu ku dhiibayo xujaajta ayuu u bixin jiray ama siin jiray oo ay ka go'day sahayda. intaa kadib wuxuu ahaa sidiiqan xamiiman lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qabla an yubcath. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam intaana lasoo saarin waxay ahaayeen sadiiqaan, laba saaxiibo aad isugu dhow. laakiin markii la weynaaday oo waxaa la yiri xakiim ibnu xazaam sidaas iyadoo tahay nebiga saaxiib layahay, haddana wuxuu ka weynaa ب5 sanawaad. laakiinse wuxuu ahaa mid aad u jecel una soo dhaweysta wayartaaxu ilaa suxbatihi wa majaalisatihi. la fadhigiisa iyo saaxiibtinimadiisa iyo suxbadiisana aad ugu riyaaqsan ayuu ahaa. laakiin maxaa dhacay? wax kastaba maxay dhaceen? thumma jaaat, waxaa timid oo arintaas kasii xeel dheeraatay usra, inay noqdeen qaraabanimo. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu guursaday umunaa khadiija radiallahu canha wa ardaaha. waqad tacajaba bacda kulli dalik, intaas kadib waxaa wax aad loola yaaba ah la yiri calaaqadii xakiim ibnu xazaam iyo nebiga kala dhexaysay, iyo dhawaanshihii iyo jacaylkii iyo say isugu xirnaayeen, iyo in uusan xakiim ibnu xazaam kadib dhacay in uu islaamka durba soo galo. arintaa ayaa waxay noqotay mid aad loola yaabo.
faqad kaana almudannuun dadka waxay u malaynayeen xakiim ibnu xasaam oo kaleeto sida ay isu jeclaayeen nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam in uusa kadib dhacaynin. nacam, laakiin arrintu waa sida uu ilaahay doono iyo mashiicada ilaahay ayay ku ahaatay. waayahay wakumaa tacajab, sidii aad u yaabta ayaan annagana waxaan u yaabnay uu yiri min ta'akhuri islaam xakiim ibnu xasaam. la yaabkaas ummadda dhan ayaa waxay ahayd mid aad uga tacajabsan xakiim ibnu xasaam iyo ta'akhurkiisa can alislaam. faqad kaana yacjub huwa nafsuhu min dalik, isaga naftirkiisa ayaaba wuxuu isla yaabi jiray dib dhaca ku dhacay. fahuwa maa kaada yadkhulu lislaam, ma uusan sigin islaamka inuu soo galayo wayataduuqu xalaawatu liimaan xataa jacala bacdu banaana nadam, ilaa markuu shallaayo farta dhexda ka qaniina intii uu kusoo qaatay ma aragta ayay gaalnimo ayuu aad uga shallaayay. xakiim ibnu xasaam mana uu islaamin ilaa yowma alfatxi maka, waa adiga muddo ku dhow 20 caaman, 20 sano ayuu ma aragtay islaamnimada kadib dhacsanaa asagoo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam saaxiibtinimo iyo ma aragta qaraabanimo iyo isu dhowaansho aad u xeel dheer ay lahaayeen qabla alislaam. laakiin ilaahay wixii uu doono ayaa ahaanaya, wamaa shaa allahu kaan, wuxuu ilaahay doono ayaa ahaanaya, wuxuu ilaahay doonina ma ahaanayaan. waayahay falaqad ra'aah, waxaa arkay ibnuhu wiilkiisa bacda islaamihi, markuu ma aragtay islaamay kadib ayaa wiilkiisii wuxuu arkay asaga oo oynaya xakiim ibnu xasaam. faqaala, markaasuu ku yiri ma yubkiika yaa abataah, aabbow maxaa kuu awhinaya, maxaa kaa oohinaa wuu yiri. markaasuu wuxuu yiri umuurun kathiira kullahaa abkaani yaa bunay, aniga arrimo aad u fara badan, laakiin awaluhaa midas ugu horeysa waxay tahay waa budu islaami, waxay tahay kadib dhici aan kadib dhacay, mima jacalani allahu, ilaahay inuu iga yeelay asbaqu ilaa mawaadinin, ilaahay ma aragtaaye anigoo u hormari karay oo islaamnimada ugu hormari karay ayaan kadib dhaca u yiri. nacam, maxaa marka dhacay halkaas? wuxuu arkay wiilkiisii ayaa waxaa arkay xakiim oo oynay, markaasuu wuxuu yiri aabbow maxaa ku helay? markaasuu yiri wax badan ayaa iga oohinaya, laakiin inaan islaamnimada kadib dhacay oo islaamkii aan kadib dhacay aniga oo meelo badan islaamka inaan ugu hormara ay ahayd ayaa horta kamid ahuu yiri. nacam, ثم إن الله سبحانه وتعالى إلهي وحو إيجا بدباديو يري نجاني الله يوم بدر، maalintii بدر أيو إلهي بدباديي، وأحد نو بدباديي. فقلت يومئذ في نفسي، maalintaas ayaa nafteyda ku iruu yiri mar dambe quraysh garab iyo gaashaan uma soo noqon doontid, nebigana uma soo kaalmaysan, laakiin hase yeeshee akhruju min maka ayaan kasoo baxoo yiri, hase yeeshee maba aanan ii sheegay an jarartu ilaa nusrati quraysh, mar kasta oo waxaan israahaa yiri u garabsana quraysh, laakiin waxaan is arkaa yiri aniga oo mar walbaba quraysh soo raacay. ثم إنني كنت waxaan ahaa كلما هممت بالإسلام، mar kasta oon islaamka hamiyo oo aan islaamka inaan qaato aan damco, nadartu ilaa biqaayaa min الرجال quraysh raggii ka haray ee gaalnimada ku haray ayaan fiirinayaa yiri, oo ma aragtay asnaan duqow ah oo aniga aad iga sii waaweyn, wa aqdaaru mutamasikiina, kuwaasoo ku dhagan diintooda oo ma aragtay diinna ma ahee ku dhagan wixii aabayaalkood iyo awowyaalkood ay aaminsanaayeen oo min ashirki, bimaa hum calayhi min amri aljaahiliyati, jaahiliyadii nimankaas ku dhagan markaan arkaba faqtadii bihim wa ajaarihim, waa iska jooga jiruu yiri, ayagaan ku dayin jire, dariskooda iyo macooda ayaan ahaa, islaamkii sidaas ayuu iiga ta'khuruu yiri. nacam, wayaa layt shalaytadaydee an ilama afcal, maxaa waxaas u sameeyuu yiri, famaa ahlakana ilaa iqtidaa biaabaa'ina, war maxaa naga galuu yiri inaan ku dayano aabayaalkeen
iyo wa ku baraa'anaa falima laa abki yaa bunay wiilkaygiyo maxaan u oynaynin inuu yiri intaasoo sano ayaa wuxuu yiri diintii iyo khayrkii islaamnimadii kadib dhacay ilaahay baa badar iyo uxud iga badbaadiyey ilaahay baa subxaanahu watacaala diintan sharafkeeda iyo karaamadeeda dib markaan uga dhacay bismillaah oo dad badan oo aniga qaraantayda ahaana ay u hormareen marka yaa shalaytadayda yaa laytani wuxuu leeyahay maxaan ugu sameeyey quraysh maxaan quraysh u dayday maxaan dadkan diinta ka haray ugu dayday wakamaa cajabnaa sidaan la yaabnuu yiri naxnu min ta'akhuri islaam xakiim ibnu xasaam wakamaa kaana yacjubuhu wa nafsuhu min dalika aydan asagaba waa isla yaabanaay faina nabiy salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhi kaana yacjub wuxuu aad ula yaabi jiruu yiri nin xakiim ibnu xisaam oo kale ah fahamkiisa iyo caqligiisa kayfa yakfi calayhi lislaam war islaamka see uga dib dhacaa wa kayfa ii sheegay sidee ayuu iigu raali noqdaa misla ii sheegay haadihi shirki shirkigan waayah fafi leylati alatii sabaqat fatxu maka habeenkii la furan doono maka habeenkii ka horeysay qaala calayhi salaatu wassalaam nabi maxamed wuxuu ku yiri asxaabtiisii ina bimakkata la arbacata nafarin arba'u bihim can ishirk wa argabu lahum fi lislaam qiila waman hum ya rasuula allah qaala citaab ibnu usaydin wa jubayr ibnu mutcim wa xakiim ibnu xasaam wa suhayl ibnu camr wuxuu yiri mako waxaa joogu yiri 4 qof oo aan aad ola naceebaysanahu yiri oon u quurinba shirki inay kusii jiraan wa arqabu lahum fi lislaam islaamkana aan la jeclaan laha waa la weydiiyey yaa rasuulallah yayihiina layiri raggaas 4 ah markaasuu wuxuu ku jawaabay cataab ibnu usayd iyo wa jubayr ibnu mutcim wa xakiim ibnu xasaam iyo suhayl ibnu camrin wa min fadli illaahi subxaanah calayhim annahum aslamuu jamiican ilaahay qadarkiisa 4toodiba way islaameen 4toodiba ilaahay baa islaamnimada iyo diinta ku sharifay waxiina dakhala rasuulullaahi salawaatu llaahi wasalaamu calayhi maka faatixan isagoo furanaya abaa wuu diiday ilaa an yukrima xakiim ibnu xasaam fa amara ilaahay rasuulkiisii ayaa wuxuu diray munaadiih mid maaragta naadinaya an yunaadii inuu naadiyo man shahida an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh fahuwa aaminun qofkii shahaadateynka qirta waa aamin waman jalasa cinda alkacba qofkii fariista kacbada agteeda fa wadaca silaaxahu fahuwa aamin hubkana iska dhigay gacmaha taagana waa aamin waman aqlaqa calayhi baabuhu fahuwa aamin qofkii gurigiisa isku soo xirana cid ugu gelaysa malahu waa aamin waman dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin abi sufyaan gurigiisa ninkii galana waa aamin waman dakhala daara xakiim ibnu xasaam fahuwa aamin nabiga sala allahu calayhi wasalam ogeysiiskaas nin bixina ayuu diray wa kaana daaru xakiim ibnu xasaam waxay ahayd fii asfali maka hoosteeday ahayd wa daar abi sufyaanna fii aclaaha maka korkeeda ahayd adiga labada dhinacba si ay qoladii xaggaas jirtana u galaan daarta abi sufyaan qoladii hoos joogtana ay u galaan daarta xakiim ibnu xasaam intaa kadib maxaa dhacay marka aslama xakiim ibnu xasaam islaaman malaka calayhi lubbuhu wa aamana iimaanan khaalada damahu wamaa raja qalbah xakiim ibnu xasaam wuxuu islaamnimo qalbigiisa dhehday iimaankiisana kala dhex gashay qalbigiisa iyo lubigiisa iyo laftiisana kala dhex gashay waaya markaasuu muxuu sameeyey naftiisa ayuu aad u canaananayaa nacam calaa nafsihi an yakfura naftiisa ayuu wuxuu ku canaantay inaan kaga kafaara gutuu yiri can kulli mowqifin mowqif kasta oo waqafuhu fi ljaahiliya meexii aan jaahiliyada ku soo maray waa inaan kaga kafaara gurtaa islaamka aw nafaqatin amaba xoolo aan bixiyey fii cadaawati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam aan ku bixiyey
biamhaali amhaaliha labalaabkeed waa inaan islaamnimada iyo diinta ku dhiibo. waqad barra biqasmihi wuxuuna ku dhaartay dhaartiisina wuu ka dhabeeyey. muxuu sameeyey markii ay ii sheegay annahu aalat ilayh daaru nadwa baarlamaankii quraysh ayaa waxaa ilaahay uga dhigay asaga in uu u helo hanti ama dhaxal. wahiya daatu cariiqatin daatu taariikh mid taariikh u saaxiibay ahayd oo mid magac lahay ahayd. waayahay fafiiha kaana taqcudu quraysh mid ay ku shiri jirta ayuu ahaa. mu'tamiraat filjaahiliya shirarka ay ku qabsan jireen way ku kulmi jireen saadaadkooda iyo kubaradooda liyata'amaruu birasuulillah say rasuulku ugu tashtaan. markay rasuulku u tashanayaan markay danahooda qabsanayaan daaru nadwa ayay ku shiri jireen. waana meeshii ay go-aanka ugu qaateen nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam marka ay maka ka bixinayeen in ay dilaan markay go-aansadeen. fa araada xakiim ibnu xasaam wuxuu marka go-aansaday an yatakhallasa minha daaru nadwa inuu ka takhaluso oo uu iska iibiyo. wa kaana yuriidu an yubadila inuu uu ku bedesho sitaaran min albustaani calaa dalika almaadi wixii ka tegay iyo wixii ka dhacay inuu kaga kafaaro guto. fabaacahaa wuu gaday wuu ku beeciyey b100,000 dirhamin 100,000 oo dirham ayuu ku gaday. faqaala lahu qaa'il qof ayaa wuxuu ku yiri min fatyaana quraysh dhalinyaradeeda kamid ah laqad bicta mukramata quraysh yaa cam quraysh sharafkeedii iyo meelaheedii karaamada lahaa waad gabduu yiri. faqaala lahu xakiim wuxuu ku yiri hayhaat arrinku sida maa yaa bunay dahabat ilmakaarima kullaha makaarim iyo sharaf oo dhan tagtay oo dhimatay walam yabiq bihaa ila taqwa war taqwa ma ogi wax kaloo makaarim la yiraaho iyo sharaf la yiraaho iyo quraysha magac lahayd ma jirte meesha ka tag yiri. wa inii maa bictuhaa umana aan gadin ilaa liishtaraa bithamanihaa bibaytan fi ljanna guri jannada ku yaalo inaan ku iibsado ayaan isaga gaduu yiri. daaru nadwa waxay aniga iigu fadhiso iyo quraysh magaceedi waaye ma jirtuu yiri. wa inii ushidukum waxaan aniga markhaati idin gelinayaa inaan lacagtaas aan ku gaday oo 100,000 oo dirhan ahayd fii sabiilillah aan u yeelay sabiilka ilaah iyo wadadii allah inaan ku bixiyey ayaan idin markhaati gelinayaa. xakiim ibnu xasaam xaja bacda islaamihi intuu soo xajiyey fasaaqa amaamahu 100 naaqah 100 halaad oo geel ayuu soo kaxeeyey. halkaa ayuuna wuxuu sameeyey hilibkeedii iyo xoolaheedii ayuu dadka xujaajta ahaa ugu bixiyey oo ugu gowracay taqaruban ila allah asoo ilaahay ugu dhowaanaya. fa fii xajati lukhraa xajkii ku xigayna muxuu sameeyey intuu istaaga carafaad ayaa waxaa maciisana ahaa 100 min alcibaad cabiid 100 adoon. waqad jacala fii kulli cunuqin kullu waaxidin minhum tawqan min alfida fido ayaa ugu jirto naqasha calayhi oo lagu soo qoray cutaqaau lilaahi caza wajal can xakiim ibnu xasaam. waa kuwa loo xoreeyey ilaahay dartiis oo uu xoreeyey xakiim ibnu xasaam. uma attaqahaa jamiican kulligoodna waa xoreeyey. wa fii xajati thaalisa xajkii ku xigay xakiim ibnu xasaam wuxuu soo kaciyey 1000 shaatin 100 neef oo ari ah. kadibna muxuu sameeyey halkaa ayuu wuxuu ku sameeyey araaqa damuha dhiigoodii ayuu daadiyo wuu gowracay. kullahaa bimina ayuu ku gowracay wuxuuna ku quudiyey fuqaraa'i lmuslimiin taqaruban ila allahi caza wajal asagoo ilaahay ugu dhowaanayo. nacam wuxuu rabaa wixii ka tegay oo islaamnimada ku dhaafay gaalnimada ku dhaafay oo jaahiliyada ku dhaafay oo waqtiga dheer ahaa kafaaro gud inuu kala yimaado oo hantidiisi uu ku bixin jiray ilaahay jidkiisa inuu uga soo horjeedo inuu maanta ku bixiyo ilaahay wadadiisa. wa bacda qaswati xunayn oo fatxul maka ka dambeysay sa'ala xakiim ibnu xasaam wuxuu weydiistay rasuulka min ghanaa'im qaniimooyin ayuu weydiistay. fa acdaahu wuu siiye. kadib hadduu weydiistay haddana waa siiye. haddana wuu weydiistay haddana wuu siiye ilaa ay ka gaareen 100 baciirin 100 neef ilaa laga siiyey yowmu xunayn
وكان يومئذ حديث الإسلام مركز أيوب سوى إسلامي واسان هرو إشو شاقني أو فتح المكة أيوب إسلامي marka dagaalkii xunayna fatxu maka wax yar oo adiga aanba bil iyo waxba aan dhamayn ayuu ka dambeeyey nabiga sallallahu calayhi wasallam waa siiyey markii dambe wuxuu ku yiri faqaala lahu rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam yaa xakiim ina hada almaal xulwatun khadira maalkan waa wax macaan oo cagaaran faman akhada qofkii ku qaata bisakhaawati nafsin buurika qofkii ma aragtay ku qaata maalkan asaga oo ixtisaab iyo ilaahay ajir kaga doono leh waa loo barakaynaa waman akhada biisraafi nafsin naftiisa ii sheegay asagoo ku qaadanaya bilaa qanaaca la-aanna lam yubaarik fiihi looma barakaynaayo wuxuuna lamid noqonayaa wakaana kaladii ya'kul walaa yushbic qof cunto cunay oo aanan dhargayna calool weynaad un ka qaaday halkaa ayuu noqonayaa qofka hadduu qanaaco iyo iimaan ku qaatana ilaahay baa u barakaynaa waaye walyadu lculyaa gacanta saraysana khayrun min alyadi suflaa gacanta hooseysa mar kasta waxaa ka khayr badan gacanta saraysa ee wax bixisa falamaa samica xakiim ibnu xasaam dalik arrinkaas markuu ka maqlay min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yiri yaa rasuula allah والذي بعثك بالحق إلهي حق وصاري بان كدارتي لا أسأل أحدا بعدك شيئا قف أذيك قداشا عن وحويدي سندون مجرو ولا أحد قفن مجرو من أحد أخذ شيئا عن كقاذنايو حتى أفارق الدنيا إلا أن أبدونك كتبو قداشا عد عن وحقاذن دون عد عن وحويدي سندون مجرتو waayahay wabarra wuxuuna fuliyey xakiim ibnu xasaam dhaartiisii wuuna ka dhabeeyey fafii cahdi abi bakrin dacaa sadiiq abubakar sadiiq ayaa wuxuu u yeeray xakiim akthara min mara wax badan ayuu u yeeray si liakhda cadaahu min baytilmaalka mushaarkii uu ku lahaa si ugu qaato faabaa an ya'khuda ninkan ballan u galay rasuulku ballan ka qaaday ballantiina waa inuu oofiyaa waa u diiday marka waxba kama uusan qaadan walamaa aalat alkhilaafatu ilaa faaruuq radia allahu canhu khilaafadii muslimiinta markay u wareegtay cumar ibnu khadaab dacaa cumar wuxuu ugu yeeray ilaa akhdi cadaa'ihi mushaarkiisii iyo raatibkiisii inuu qaata ayuu ugu yeeray xakiim laakiin xakiim maxuu sameeyey faabaa an ya'khuda minhu shay-a inuu waxba ka qaata waa u diiday wuxuu yiri may meeshan waxaa socota ballan uu nebi maxamed la galay sala allahu calayhi wasalam faqaama cumar fi nnaas cumar waa istaagay wa qaala markaasuu ku yiri ushidukum waxaan idin markhaati gelinayaa yaa macshara almuslimiin muslimiintiyay anii adcuu xakiiman xakiim inaan u yeeray ilaa akhdi cadaa'ihi inuu qaato mushaarkiisii oo fa abaanii uu iga diiday haa markhaati ka ahaaduu yiri in aanan ku takrifalin aniga mushaarkiisii in aan xaqiisii ka duudsinin laakiin aan la-ahay wax xaqi iga qaata xakiim inuu saa sameeyey ogaaduu yiri wadalla xakiim kadalik arrinkaas ayuu ku joogtay oo uu kaga dhabeeyey lam ya'khud min axadin shay-a qof uu shay ka qaatay ma jirin oo maal ah ama uu weydiistay xataa faaraqa alxayaat ilaa ay nolosha daysay oo adduunkii ka tegay isaga oo u baarinimo yeelaya ama ka dhabaynaya ballantii uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam la galay nacam xakiim ibnu xasaam wuxuu rabaa maadaama 20 sana fi ljaahiliya uu kusoo qaatay maanta wuxuu rabaa ma aragtay inuu martabadii dadkii ka horreeyay ay gaareen in uu gaaro ayuu rabaa waa ka halkaas waxaa noogu eg qisadii ama taariikh nololeedkii xakiim ibnu xasaam qofkii raba inuu ka siyaadsado ama uu ma aragtay war dheeri akhbaar dheeri ah ka helo ha fiiriyo kitaabahan al-istiycaab al-isaaba al-milal wannixal طبقات الكبرى سير الأعلام النبلاء حماة الإسلام تاريخ الخلفاء
صفة الصفوة المعارف أسد القابة محاضرات الأدباء ويهي مروح الذهب مروح الذهب. نعم xakiim ibnu xasaam saxaabigeenii halka ayay qisadiisii noogu eg tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.